wax ugu fadli badan salaatu leil waay, wax kale ka fadli badan waa la waay. salaada iyadoo tiir maaha, salaatu leilka haddana lagu sheegaya. walidalika xadiiska wuxuu leeyahay nabiga xadiiska abi hurayra afdalu siyaami bacda ramadaani shahrullahi almuxaram, soon sunaa la soomo waxa ugu fadli badan kan oo shahrullahi almuxaram la soomo. markaasu wuxuu yihi wa afdalu salaati bacda almaktubati salaatu leil. nacam wuxuu leeyahay salaada oo ugu fadli badan maktuubada salaada fardiga oo lagu fardi yeelay shanta salaadood wixii ka dambeeyay wuxuu leeyahay salaatu leil ugu fardi ayaa ugu fadli badan. nacam mu'minkana sharaf u ziyaadaysaa, ninka salaatu leilka tukanaya sharaf iyo mahaab uu leeyahay. ninka mu'minka u ziyaadinaysa. xadiiska Sahal ibn Sacd ayaa uu sheegay jaa Jibriil ila nabiy sallallahu alayhi wasallam ya Muhammad wuxuu ku yiri cish ma shi'ta fa innaka mayitun, inta rid noolow waa dhima doontaa, macnaha naf kasta geeri dhimanaysaa. waxay waxbib man shi'ta, qofka aad jeclaaw fa innaka mufaariquhu, adiga waa ka tegi doontaa. maxamedow qofka aad jeclaaw waa ka tegi doontaa. wacmal ma shi'ta fa innaka mujzi bi, wax kasta samee waa lagu abaalmarin doonaa. uma qaala wuxuu ya Muhammad sharafu lmu'mini wuxuu yiri waa qiyaamu lleyl wacizuhu istiqnaahu can innaas. allah nacam xadiiskaas xaakimaa soo saaray, sheekh imaam dahabina waa ku waafaqay. wuxuu leeyahay nabiga alayhi salatu wasalam jibriil hadla wuxuu leeyahay intaa rid noolo waa dhiman doontaa, intaa qofka aad jecla waa ka tegi doontaa. wuxuu leeyahay waxa arta samee waa lagu abaalmarin doonaa. laakiin wuxuu yiri sharafka mu'minka laba arrin ku jira. ninka mu'minka salaatu leil inuu tukado iyo muxuu yiri inuu dadka baryada ka daayo, dadha baryin. cizuhu wuxuu ku leeyahay istiqnaahu inuu ka deeqtoomo can innaasi, dadka inuu ka deeqtoomo. nacam qiyaamu leilka faa'iidadiisa waxaa kamid yaqbadu calayhi saaxibuhu. ninka waxaa layidhi waa lagu xasdi karaa, ninka salaatu leil tukanaya waa dhihi kartaa alla ninkaa waa iga fiican yahay, salaatu leil tukanaya waa dhihi kartaa macnaheed. nacam laa xasad ila fi ithnayni, nabigaa yidhi xasad ama qibdada qof inaad waxa uu haasto aad ka hinaastid ama aad u qayrootid. wuxuu yidhi laba arrin le wey. rajulun ataahu allahu maalan, ataahu allahu alqur'aan, nin ilaahay qur'aanka baray oo fa huwa yaquumu bihi aanaa alleil, maaha inuu iska akriyo keliya habeenka. dad badan hadda xufaad qur'aan jir laakin salaatu leil ma tukadaan, waa mushkilo. salaatu leilka iyo qur'aanka maba kala haraanba ay. nacam walidalika wuxuu leeyahay nin ilaahay qur'aan baray, ila qur'aanka ilaahay ataahu fi qur'aanka waa la isku keenaa. qur'aanka maaha anaa iska xifdinaya iyo lacagaa bixinaya iyo maaha, ilaahay aad doorto dadkoo baranaya, ilaah naga dhigi kuwa doorta ilaahay subxaana watacaala. walidalika ataahu lahu alqur'aan, ninka ilaahay qur'aanka u keeno markaasu wuxuu leeyahay fahuwa yaquumu, laakiin qur'aankaas wuxuu bihi ana alleil, habeenkii lo taagan yahu waa ana nahaar salaad ku jiraa. ninkaas waa dhihi karta alla ninkaa muxuu faa'iiday waa dhihi kartaa. maxaa dhacay qur'aan ilahay waasi, qur'aankina waa salaatu leil ku tukadaa, maalintii waa la taagan yahay, qur'aankaas ayuu ilahay ku barya. waa dhihi kartaa kan oo kale ilahay iga dhigo, ninkan nasiibuu leh waa dhihi kartaa. sidoo kale warajulun ataahu allahu maalan, nin ilahay maal siiyey oo fahuwa yanfiqu ana leil, nin maal ilahay siiyey qani ka dhigay oo lakaan baqiilin habeenkii maalintii waa sadaqaysana, maantana waxbuu bixina. waa dhihi karta alla maalkan oo kale hadaan helo ninkaas koolaan qana waa dhihi kartaa, ilahay waa iga dhigi karaa. nacam qira'at alqur'aani fi lleyli ghaniimatun cadiima waa idin, habeenka qur'aanka la akhrinayo ghaniimo weeye. waxaa loo soo dirisa xadiiska camr radiallah ibn cumar cabdullahi ibn camr caas wuxuu leeyahay qaala man qaama bicashara aayaatin, ninka ku tukado 10 aayadood oo lam yuktab min alghaafiliin, ninkaas ilahay ghaafiliin kama dhigo. 10 aayadood salaatu leil ku tukado bas, 10 aayad. ninka 10 aayadood ku tukado salaatu leil ilahay ma dhigaa dadka ghaafiliinta oo la ilaabay, ilahay ma ka dhigaayo. ilahay nagama dhigi kuwa ghaafiliinta wax ilaabay. waman qaama b100 aaya, ninka 100 aayo ku tukadana kutiba min alqaanitiin, ilahay subxana wataala qaanitiina. waman yaqnut qaanitiinta macnaa qur'aanka markii laga hadlayay xaafidu cala salaati wasalaatu wasa, ilahi subxana wataala waxaa naqaatin dadka qaanitiinta lagu dara asaga. nacam waman qaama b1000 aayatan, ninka 1000 aayadood ku tukadana kutiba min almuqantariin ayuu ku tilmaamay. nacam muqantariinta waxaa miman kaan lahu qintaar min alajri, waa macnaha qintaarka waxa weeye waa buurta jah oo kale ah. nacam qiraad iyo qintaar iyo lagu tilmaama ayuu qaato leeyahay qofkaas asagana. nacam sidoo kale abi hurayra waxaa laga wariyay xadiis uu dhahayo ayuxibu axadukum ida rajaca ila ahlihi an yajida fihi 3 khilfaatin cidaamin simaan. qaaluu nacam, ninkiin ma jecel yahi hadduu ku laabto inuu helo waxa uu 3 wuxuu yihi nabiga alayhi salatu wasalaam oo wuxuu yihi arrimood oo waaweyn inuu ku tilmaamay. qulna nacam, qulna wuxuu yihi 3 aayaat yaqra'uhuna bihina axadukum salaatuhu khayru lahu min 3 khilfaatin cidaam. nacam nabiga alayhi salatu wasalaam ayaa halkan wuxuu noogu sheegaya asagana wuxuu leeyahay 3 aayadood haddaad ku tukatid ajirka aa helaysa inuu aad u badan yahay oo halkan kugu sheegaya. nacam
walidalika nabiga alayh salam wuxuu xadaday muddada ugu dheer oo qofka qur-aanka u khatimi karo. xadiiskii cabdullahi bn camr caas wuxuu leeyay fi 40 yowman nabigu uu weydiiyey sa'ala faqaala fi 40 yowman ثuma qaala fi shahr ثuma qaala fi 15 ثuma qaala fi 10 ثuma qaala fi 7 qaala inii aqwى fi dalika qaala laa yafqa min qur'an fi aqala min 3 saddex maalin ka yar qur-aanka laguma khatimi karo. afdiga awqaadka la tukado waxaan yidhi waxaa la yidhi horena waa laka tukan karaa salaatuleilka afka hore cishaa markaa tukatid waa raacayn kartaa wasadkana waa laga tukan karaa aakhirkiisana waa laga tukan karaa waxaa diisa xadiiskii rasul sal alay slam yafturu min ashahri xataa tadunna anahu laa yasuumu nabiga alayhi salatu salam waxaa la yidhi inuu iska afurayaa maalmo badan waxaa loo yidhi maba soomaayo marna soom uu wadayaa haddana waxaa la yidhi maba afuraayo saasuu ahaa jiri nabiga alayhi salatu salaam. ولذلك waxay leeysaa xadiiska wuxuu leeyahay وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. نعم marka waxaa halkaas cad inay taysiir uu jiro nabiga alayhi marna hore ka tukanayo laakiin markaas waxaan yidhi waxaa fadli badan tan ugu dambaysay in la tukado aroon. nacam maxaa yeelay xadiiska kale uu dhahay isagana aqrab ma yakunu الرب من العبد في جوف الليل الآخرة. aqrab ma yakunu العبد إلى ربي waxay ahayd markuu adduunka ilaahay u dhow yahay markuu hu saajid wey laakiin wuxuu leeyahay ilaahay markuu adduunkiisa u dhow yahay waxa weeye ilaahay markuu adduunkiisa u dhow yahay waa joofka habeenka dhasaqdiisa dhexe ayuu xadiiska caddaynaya. nacam xadiiska kalena wuxuu lahaa yanzilu rabbuna tabaaraka watacaala kulu leylati ila samaa dunya ilaahay samaa dunyada u imaanaya xataa yabqa thuluthu leyl aakhir fayaquul wuxuu leeyahay marka thuluthka ugu dambeeya wuxuu leeyahay ilaahay man yadcuunii faastajiibu lahu waryaa waxay baryaaya aan ajiibaa yaa i baryaaya u ajiibaa ومن يسألني فأعطيه وريا وحي ويديسنا أنصيا من يستغفرني فأغفر له وريا دم دافع ويديسنا ودم دافع فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر والنبي عليه الصلاة والسلام إلهي ساسو مركز صدها دون كيسة يا وحي ويديسنا إلى. نعم إذن عن جابر وحلقوري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حديث كان متفق بخاري مسلم كجرة وعليه إن في الليلة هبين كستوحى كجرة لساعة ساعات لا يوافقها أو هدو أوافق عبد مسلم يسأل الله خير من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. فير بالفير هذا وان كهذا أنه حانري صلاة الليل كفائدة لذا إلهي ورضا الماء حبسك هذا جرا ما أنت نوح على قارنا كدبوري سا ما أنت نوح لنا الباب كيستا أنت وزير أم وحاب بريا سا أم وذحوين أو حك بريا صلاة الليل صوت كع إلهي ويجلس محيا لو حكجرت هبين كستو حكجرت ساعات إلهي وحى ويجلس وقصينا وحربها هذا waxa idaha weeris hore ka helis ma rabtid laakiin dadka waa ilaahay qofku gafi waa gaar tawfiiq ilaahay iskale ilaahna waafajiyo dhamaanteen marka ina habeenkaas lagu soo kiciyo oo aad tukatid maxaa yeelay habeenkaasna saas waa leeyahay habeenkaas saacada ku jirto saacadaas oo la leeyahay qof wax ma weydiiyo yas'al Allah khayran min amri dunya wal aakhirah aakhiran wax ka weydiiso janno weydiiso adduunyada awlaad maal qurbo ku hayso wax kasto ku hay ilaahay weydi wuxuu leeyahay illa haduu wala ajiba saacadaas marka saacadaas iyo ku gafin yaa heli kara saacadaas ninka salaatuleil tukanayo ayaa heli kara marka in lagu dadaalo sidoo kale. nacam wuxuu yiri sidoo kale Caaisha waxay leedahay xadiis kale xiinama su'iltu markii la weydiiyay ayu amal ahabba ila rasuulillah markii la weydiiyay Caaisha tiri amalka oo nabiga ugu jeclaa muxuu ahaa qaalad waxay tiri ad-daa'im amalku wuxuu jeclaa daa'ima dada waxay sameeyaan cawada soo kaca tum ish saddex rakac tukana ama wuxuu tumi kow rakac habeenka dambe waa ka caajisa tumi kow tukan karo walaalka waxa ugu fiicnay tir Caaisha kan uu daa'imka waxa la rabaa salaatu leelka nabiga alayhi salaatu wasallam wuxuu yiri masna wa salaatu leeyli masna fi idha ghashiya ahadukum as-subha صلى ركعتين وركعة واحدة توتر له قد ما صلى. حديث كاس النبي عليه الصلاة والسلام ومتفق عليه البخاري مسلم كجره وعلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل لبا لو تكذا لبا ركعة لبا ركعة أو يكون بلا وقت تنوير لبا ركعة هذه آت مركز سوق عديد إن لبا ركعة تكتيد كلية وفجرك أنت لا أدمنا ده سوق عديد أنت فجرك لا أدمه فجرك نص ساعة كهرسنت أم ربع ساعة كهرسنت ده سوق عديد والله ركعة تكتي وترك أخو قتنت صلاة الليل وتكت تاسا كفي عن مركة إن هبين أن تمط كتد هبين أفر تكتد كليز وحافي عن عمل دائم أو حتى هير وإن قل هبير هذا دورهم لكن صلاة الليل مرنا إن يكون دافع عشاء كتب تكتا صومها عشاء كتب الصلاة ركعات بدل ما تكرت تقول لبا ركعة هذا لبا ركعة أفر مكان تكت وترك تكو صلاة الليل كدارت اسكو دري كرتا سيده وترك waxa ka dhigi kartaa afar rakaca oo duhurka sida duhurka kale isku dar
laakiin waxaa fali badan markaas laba iyo laba iyo laba fali badan. laba tuko haddana laba tuko witr ku dar, ama laba tuko laba ku tuko 6 tuko 7 ku dar kaligiis hal ragca kale witr ah, ama 3 laba laba ah 7 ragca, ama 5 laba laba 10 hal ragca 11 saasay ku noqonay. laakiin hasku badanin hadhow waxa sameey karin wax yar adaant maxaa yar waxa ugu yar laba ragca ugu yar ninkii laba ragca iyo witrka tuko salaatuliil waa tukay kaas. naam marka waxay tiri Caaisha waxa daa'imku jeclaa mata kaana yaquum qaal kaana yaquum idha sama'a saar nabi alayhi salatu wasalam waa soo kici jiray hurdada waa ka soo boodi jiray markuu maqlo waxa saariqa. xadiiskaas kale wuxuu leeyahay sidoo kale cadadkeeda maxduud ma aha. naam qofka inuu cadad isku xaday ma aha wuxuu awoodo ka tukan karaa. naam nabi alayhi salatu wasalam waa tukay 11 ragca waa tukay 13 ragca waa tukay nabi alayhi salatu wasalam waa ficilkiisa waa nabi alayhi salatu wasalam laakiin ficilkiisa waxa ka xukman qowlkiisa. markaas usuuliyiintu waxay leeyihiin tacaarud ida tacaarada qowlu nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ficluhu waxa awla qowlka horeey maxaa dhacay qowlka muballigh waa la amr ma'muurku ficilka laka asaas sameey laakiin ficilka ma'muurku ma aho laakiin qowlka waxa leeyahay balligh ma unzila ilayka waa inuu balagha walidalika haduu yiri salaatu layl masna haduu yiri labadaas loo tukana waa la kala qaada asaas oo kale lama fiirinayo marka ficil haddaad marka siiratina ficilka nabiga sii sameeyay fa fiha marhab wax ka fiican lagu daysado ma fiican nabiga alayhi salatu wasalam in lagu daysado waa ajir badana ku siilaysa laakiin inaad inta harta ay tuko ka jir walaalka salafka qaarkood 400 ragca tuko jiray 200 ragca Ali ibn Talib laga hayaa waxa laga hayaa Imam Ahmed rag badan laga hayaa ragcooyin badan habeenkii dhan salaadii ku jireen maxay salaada inay ajir badan tahay ugu soo yihiin ayagoo quraanka akhrinaya salaadeen ku akhrinayaan salaada waa u taagan yihiin. naam نعم ولذلك